1. wadaadada bariga hore moogtay fiqiga akhriya culimada ah kuwa waxa jiray ka falaagoobo oo aan waxna baranin oo qubuuraha intay wareegaan wax carray wax ka soo qaadaan oo culimada fiqiga akhris waxay dhigeen ruuxan iska dhaafa ويحرم وحا حارانا بناء القبر قبرك إن لا ديسو وتجهيزه إن لا نور هذايو وكان سعيد يجي ورنا اللي هذا إذنكم علم ظاهرة تقانان أنا واحد أقول علم باطن اللي هذا أيان قانا وحي سمينا المركب كاسا وحبا أقولين الدور كله كجرا قبورها وريجاي وسوق هذا عروك سوق هذا قبر ضدك عامد وكينا مركب وحولي قبرك أو هبل عن كيما هذا مرة هاي مركب وحن أو بعض وجرا وعرّرت وحي كوبان طيب محتويات كذا وعرّ لكن هو عرضان ما دحاي عرض وحوله ور حق يقول له عرض مره به لكن وحوله باشا ما تقنا adiga turaab على dhaha marka turaab maxay tahay waa caradi leeyahay macna carabi le looga dhigay bis ki caamada marka wuxuu ma sha Allah maanta wax fiican ali keenay maxaa lagu keenay turaab ali keenay turaab maxay carad le loo keenay dhadhanka laga qaado marka meeshan maamuladan aad maqlaysaan hebelo ah likulli qabilatin fiha amirul mu'minin kooda u jooga 2. waxa leeyahay dadkan reer galbeedka ah عقلي أهان لقى ما عقلي بدنه لكن حي سميان قف كذا فاشل كا وحب أوجين أي جعان قبتان إلى أكن نجح شخص دراد العقل القرآن قف كان شقي سنين سومالي حتى عملها تتوارتن عير الله قرآن الله وفاشل مبتاي وحب ما هيست وحب الله قرآن العقل الصينايا بعدين كان فاشل كا أي جعان قبنايان حتى ينجح إلى أكن نجح أما إنك وحن سمينا إنه قف كان ناجح أيام بالاش كرفينا حتى يفشل سوء فشلوا خير وحالي ميل توله dad wada in dhal ay degan yihiin yaa mid in qaba oo imaaday markaas markay socdaan markuu arkay godadka ay ku sii dhacayaan isma hayn karo wuu qaylina war godka ka leex kii uu isku naxay bariga hore intuu iskaga dhaco iska kici jiray oo iska socon jiray wax godka leex dhigi jiray moona jirin way dhibsadeen marka godka leexashadiisa ay dhibsadeen waxayna ninkaan ugu soo biiray aan ugu nooc ahayn aan isku nooc ka dhigno maalna meel marka martiqaad uu qabay saaso indhoolayaashii ninkii indhaha qabay lagu sheekaysanaayo bay hal mar dhab intay siiyeen iyo labadii indhood ka bixiyeen aan wada fariisanna marka waa kaas godadka aan ku dhacno aan sii soconno taas marka aqligu ma keenayo 3. ilaa yaa jiri jirtay hadda waa iska dhaafay oo masaajidada tirada ka batay masaajid miyay yaraayeen mise masaajidada maamulkooda la isku qabsan jiray markaas mixraabkan waa la kala xoogi jiray bari odayaashu way soo gaareen wadaada marka safku toosinaysa imaam meesha ka انتو حاجه كو مقنا استووا كو هاي كو ير لا انت كسو baxay uu galeen Allahu akbar salaadi ku jiraab sheekh uu yaabay bas safkiisu dhinac ka galay dhinaciisu Allahu akbar ka wadi waa sidii lagu tukaday kaas meesha xooga ku galay marka salaadii lama aqbalay maxaa loo aqbal way salaadiisa dad weynihii uu ogolaan lahaa oo sharciyada uu saa ku yeelaya siin lahaa ayuu ka talaabsaday 4. كوا حالي رهدا فيده والبحنمده هور موقتاي يا مشان عالقابت جديد كم بدن ايو مراي marka inta nijida ka imaada horta nijida ka imaada gadaalna nijida ka imaada dhaxdu socday marka afartii jihaba afar hoon oo baabuur ay kaga soo yeeriyeen markaas dhinac u bood markuu baawura taagan xaga ul markaas dhaxdu intuu iska wuxuu dhahay intuu horan marka haawam laakiin xagaasi beedwaad li si hada raay noqotaa haadu intuu roorni noqon lahayd laakiin meelaan soo markay joogto intuu horan u dhaay marka shacabiyana Soomaalidu waxa haysata war walaalayaal hal dhinac unaga xukuma hal jid unagu jeesiya laakiin haday noqoto inta waa laga amray xagana waa laga soo amray xagana waa hadana waxa la isleeyahay shariicada ma la isku xukumo waaba la wareersan yahay goor ma la isku xukuma horta soo in la fariista ma aha oo bismillaahir rahmaanir rahiim la dhaho oo la heshiiyo oo dadka iyagoo miyir qaba intay soo imaadaan wax kala qortaan المسلمون على شروطهم مسلمين توحي أي شرط إسكال دكتان إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا 5. نينكي هذا عن صوحة أساسا حوري مول تكنجر مكاسانينا وحوري نيو لعقان كسين التكو وله شيء هلكي صلاة بالعب وكل شيء شان مال مركو تكناي يلعك يديسي مركز سليمان هذه تكتة إلهي هذه تكتة وحان كسين مال يقال له ورانا ما تكنجر هذا أي درا شغل هذا أي قليه العقد يديسي نيو وحور وراني waxaan ku siinay mal ma beer baad ifashay aniga marka lacag ku siinay markaas uu masaas aha adna maxaad ka qaaday weysilaan intuu kan jiray shantii maalmood ba weysi ma qabin aniga marka Soomaaliya qodax isku jijibay idinka
maanta maytatan jaahilin ma ka qaadaysaan jaahilnimo baa lagu dhamaanaya markii si jaahilnimada looga baxo waxa raba qof walba meeshiisa inuu yiraahdo warseen dawlad ku noqon 6 midaa safiinaha loo bilaabay hadda koor tukan jiray berigii hore markaas safiinaha wuxuu salaad u kala dhigi moogtay si la yaab leh faatixadu hatta wuxuu ku akhrinayaa التشديدات في الفاتحة فوق الراء وفوق الشين شدك ماشي لساري دن وأنا تصو أخرس الرحمن الرحيم بريجو هرا مركو تكنا وسكت درير جمال الرحمن الرحيم مالك يودي سفيني مركو سود مي يحور إله يو صلاة دي أن تكن جري سفينة كهر أجر كمر ربعه يعني لا يقب سنين إبرة يهدو تيهور وحن تكن يعني لا يقب سنون مركا sidaasoo kale day jirto oo dadka qaarkii ay leeyihiin la ilaaha illa allah idin hor waxba kama jiree hadda la idin bilaabaya waxaan soo qaadanay muslimnimadu hadda ma ina bilaaban 7 ninka siyaasiga ah qabiilka wuxuu u isticmaalaa oo kali ah jaranjaro uu guriga ku fuulo markuu darbiga saaro oo jaranjartii uu ku fuulo meesha koro uu koro hadduu rabo jaranjartii laadu ku kiciya dhulku ku soo ridaaya ilaan kor uu ku fuulay moogtahay dib dambe looma arkaayo kor suu ugu maqan yahay kuwii kor isla fuulay marmar inta isku dhacaan korkii laga soo tuura dhulku imaana jaranjartii oo dhowr sano ka hor dhulka ku riday yuu soo qaadana meeshuu raba inuu saaro marka hadana oo yiraahdo reerkeeni si xun ah loo galay waxba looma gelin adaa lagu galay maxaa jira markaad kor ku maqnayd adile dhuuqay adima waxna siisaanaga 8 qofa bakaaraha dhexdiisa lagu qabana waa lagu baaranaya mobilka soo bix intii u dhaweyd intay carraan ay xaq istaagayaan isbaaru ku dhacay muujeeda isbaaru ku dhacay war miya way badan yihiin ma hal mar lagu soo xoomo tuugadan laga celiyo ma la hadla sidii xoolaha banaanka laga istaaga markii banaanka laga istaago qofkii wixii la qaadanay laga qaato oo ay ka tagaan tuugadii oo uu soo baxo dadka soo dhax galo ay ku soo xoomayaan maxaa laga qaatay maxaa ka gal wixii laga qaataan laga qaatay war miya marka dadku markay mushkilo muddo ay ku jiraan nafsiyaadkooda iyo maskaxdooda caadi ma noqonayso 9 midaad koor waxa la qiso waxa jirtay xaafadan ayaa waxa jiray hal nin ayaa wuxuu yaqaanay yaasiinka Soomaalidana qof markuu dhimanayo in la yaasiime yaqaanan oo yaasiinka lagu akhriyo qofkii yaasiinka aan lagu akhrin oo dhinta waxay yiraahdaan hebel wuu yaasiin saagay wuxuu la mid yahay neef xoolaa oo aan la gowricin oo dhintay markii yaasiinka hadii lagu akhriyo si fiican ugu dhintay laakiin dan yaasiinka lagu akhrino iska dhinto waxa la hebel uu yaasiin saagay xaafadii halna yaasiinka yaqaana maalmaha kamida xaafadii shubana ka dilaacay daacun dhimashadii marka si xoog leh u socod halkii nin marka xaafad meeshan oo laga dhimanayo oo qof sakaraad uu ku jiro yaa loogu yeeraa yaasiin soo oraday xaq uu orday markii inuu qof dhimanayo soo yaasiin asoo qofkiiba aan gaarin يا حافظ إن عهد لقى سوق قال ياسين كياسين نحن أنتوا يستوي حوله ولا عدان ياسين لاني ولا ما أنتوانا ده ياسين كبرون ويان أنا كنا نكيل جياه ياسين لاني ولا ما أنتوانا نكون ما كده حنقول كأنه سوامالي ده وحيد ما نايان جاهل نيو مات ميتة جاهلية سحديثكم من مات وليس في عنقه بيعة أسوأ عن بيعه يا سيستم يا نظام عن كتر سنة قف كي جيريو ده مات ميتة جاهلية وحول لمنايا سي جاهلية ولمنايا 10 مد إنجليزي وحالي مد أساس وآميسانو ما فرضنا في الكتاب ميشان وحبل لو قمت تقنعي يا إسار كان حين أنا كتاب كان وحكس وشيغا بركاز الكتاب كان وحكس مشيغا ها مقعيغا كسو صار بكتاب كينا مركز سوري مقعا أذيغا وحول كوك أيا اللي دها وترى كوك اللي بيشوغي يساوي وترى كوك مشيغا يسموك مقعي نك إنجليزي أو ماشي كسو صار أو ترى كوك 11 أفنان وحلوان يربر برا هذا هساد يعني قواعد سنة هسان وهذا إيرين سان كبري إيرين فوق وكان كبريه معنا وهذا يعني هتوقف ما يجي محاترية ويستقبلين مرة قاكون لكن حديثة كلمة مال سلوا استعماله إن لغة كلام أما اللهجة كلامنا مالك الله استعماله هذا الله ما لا يفسره حال أرجع ولبا أرجعك هذا يرجده كبرت يرجده ورجيه يرجين
orgiduna ay badan yihiin habeenkaas riyahaas iyo meesha ku badan ay oo orgidu ku badan yihiin istaagu waagu ugu baryaa wax fariisan ma jirto maxaa la orgiga caawara uu qeynaya afmadaan muxuu noqday irin eesaanka badani irin waa ariga waa caadi aad fahamsan laakiin halkan waxay u baahan tahay eray bixin horena waa idinku sheegay si meeshay soo gasho ama waa la tuuraa eesaan marka maxaa la bixinaa markaan caada bixi maxaa soo haraya eesaan soo harmo laakiin eesaanka mushkilaadka taagano af maxaa tiriga eesaan waxaa loo yaqaanaa midda dhadiga ah midda waxaarta ka weynaatay ridana aan gaarin bini aadamka daan soo dhaweyni waxaa waaye gabdhuhu marka la yidhahdo gashaantida marka eesaantu waa gashaantay waa dhadig moogtahay laakiin afmaymaayigu orgiga waxaa la dhahaa eesaan orgiga eesaan marka irin eesaanka badadi arigu orgi ku batay ilin rooga waa kan ka barye suu taataagan yahay in waagu ugu baryaa soomaalida marka maxay nagu dhacay eesaanka ay nagu batay marka marka inuu istaag waagu noogu baryo maxaa diidaay waxaan u baahannahay marka orgida inaan la hadalno oonaan walaalayaalo waddanka si uu u dego waxoogaa inaan dhahno markaa dadkii waa degi laayihiin qof kasta inuu asaga madaxweyne noqdo hadduu rabo dadkii waxa waaye way rafaadayaan marka bal aan fursadiisa siino oo aan si tartiib ah oo qabow ummaduhu dagaallo way soo maraan waa la isdagaalaa laakiin ummadda dagaalka waa inuu dhammaado dadku waa inay heshiiyaan laakiin haddaan dhahnuun ha iska socdo ilaa intee buu soconayaa meel uu ku dhammaado lama yaqaano hayma iska wadnaan hayaan iska wadna le haddii la iska wado waxaas war ma ah 12, maxaa marka calanka la saari soo lama dhihin saaxirkii kala guurnay saaxirka la sheegayo ma sheegi kartaan yaa waa saaxirkaas waa isticmaalkii saaxirkii kala guurnay haye maxaa ku xiga sareeyow ma nusqaamow aan siduu yahay eegne kaana siib kan nasaar soo ma hadda maxaan joognaa saaxirkii isku soo noqonay saas ma saaxirka isku soo noqonay yaa ina kala haya yaa inagu isku diraaya yaa inoo ogol inaan heshiino marka awowyaashan hadday dhahaan saaxirkii kala guurnay waa inaan dhahna saaxirkii meeshii aad ka sii erideen innagana waan ka sii wadaynaa shalay dadku sidaan way ka yaraayeen sidaan way ka awood yaraayeen maanta dhibaatadu way ka weyn tahay xagga kalena fursadda way ka sii fiican tahay dadku aqoonta maanta ay leeyihiin way ka badan tahay shalay kuwii ay lahaayeen marka hadday rag u baahan tahay maqli jirti aabbahay baa geel lahaa waxaa ka fiican la yidhi anaa dameero leh laana geel aabbaha ulahaada oo dhammaad muxuu ku tarayaa dameer aad dhaansataa kuu dhama marka xurriyaddan aan faanfaaninayno xurriyaddii awowyaasheen saas aan geeloodii markaan sheegayno dameeraheenna awa innaga 13, afmaamee waxaa la yidhahdaa lan uur nugul addiin mudubow waxaa laga wadaa qofku markuu calool jilicsan yahay oo uur jilicsan yahay addiinna moogtahay afmaymeeg waa sida ingiriiska oo kale waa british oo kale sii kuma jirto meesha sii aad ku aragtay ka tuur bis cali hadda maalan cali soo ma dhahay siida ka tuur cali aliyagu leeyo cali le waay marka hadda maxaa tiri maalan baruurta oo kale baruurta waxa cadiin waa la dhahaa cadiin baruur cadiin ku jir Soomaa cadiinta siida ka tuur marka cadiinta maxaa ku soo haray markaas marka ay dhahan lan uur nugul addiin mudubow nina beer jilicsan oo caloo jilicsan cadiintan hilibkan oo baruurta ma dubi karo maxay markuu dabka saa u saaraba fash markuu dhaw ka soo qaadilo inuu bislaado maleeya baasho cayriinu keena marka maxaa la rabaa inaan la cabsanin oo cadiinta lagu hayo fash weligeed ba hayso 14, nina waxa uu intuu dagaal galay waxa uu fulayay taadi waa iska soo carartay wax dagaal oo ku qabsaday sagaara oo meel ordaysay iyo qajaf meel aad ka maqashay aad ka soo carartay markaas wuxuu yiri hadal la yaab loo xuna wuxuu yiri war haddii aanan nala soo eriyin maxaa xaarka naga keenay baa soo naxaya marka waxaan ka wada hadaan xurriyad haysano xurriyad aan noqonay maanta seenahay bal fiiriya 15, waa maamulka fiican way maana maxaa yeelay Soomaaliya ku maamulada miyir tagay dhameystirnaan kuma soo noqdo qofka dumar yara waasho wax la ku dambeynaa
marka nin diintii asoo u jeeda marka baxay hadduu doon haska soo islaamo oo ilaahay diintiisa iyo naxariistiisa looma diidaayo laakiin qiyaadatul umma ummad in la hogaamiyo qof oo qalbigiisa uu jilaac ku dhacay oo diintii ka baxay hogaan lagama dhigaayo 16, maalinta habeenka waxaa laga mesela qofka maalin ka horeeyo oo ka hor socda wixii aad heli lahayd mesela hortaada aad ka heli lahayd asagaa hortaa arki asagaa qaadan habeenkan ku hor socdana godkii aad ku dhici lahayd asagaa kaaga horeeyo oo wuu ku dhici waxaana marka kii kaa horeeyey oo godka ku dhacay inaad wax ka faa'iidaysato aadan godka kaga daba dhicin haddaad laakiin tiraahdo adoo u jeedo godkii inuu ku dhaca haddana ka daba dhacaa taas waa mid waa xigmad afmaynay oo aan sii turjumay afmaynay waxaa lagu yidhahdaa hordareer hamiineed hungurugeyg hindhoogaw hordareer geena hungurugeykaw manaa qofka maalinkii kaa horeeya adiga hungurugeyka macnaha waxaa wixii aad qaadan lahayd ama deen lahayd hunguriguu kaa goynaya asaga qaadanayo laakiin hordareer hamiineed kan ku hor socda habeenkii hindhoogaw indhahaad wax ku fiirsan lahayd waayo markuu godka ku dhaco waxaad leedahay alla wuu ku jiraa ma ujeedaa waa inaad ka leexata marka oo aadan godkii uu ku dhacay aadan ku dhicin saasaa qur-aanku wuxuuna leeyahay wasakantum fii masaakin aladiina dalamuu anfusahum dadkii dulmiga sameeyey meelihii ay deganaan jireen ayaa degteen watabayana lakum kayfa facalnaa waana idiin caddaynay saan ku samaynay wadarabnaa lakum alamhaal mahmahyana waan idiin soo qaadanay ood wax ku fahamtaan waqad makaruu makrahum kuwaas daalimiinta ah wixii ay shirqool samayn kareen si ay dulmigoodaas u sii wataan wax ay reebteen male 17, baalde xasan waxaan ku soo qoray dhalinyarada facebooka kuwa badan waxa laga yaabaa misalka jooga inaan saaxiibo ku nahay facebooka ay comment bixiyaan waxaan hal maqdac yar aan ku soo qoray waxaan ri xurriyadda laba ay u kala baxdaa mid qubmoos qubmoos waa taqaanaa soo koonfur markaan joogno aadaas mooska loo beertaay qubmoos waxa laga wadaa macnaha waxaan xaqiiqo ahayn qubmoos la ii tuuraa la amagta ama qubmoos la ii dhigay qofka qof qubmoos haduu ku istaago soo noqdaa wuu dhacaa soo ma xurriyadda marka waa labo mid qubmoos ah iyo mid xaqiiqo ah waxaan u qoray marka xurriyaddu waa labo mid qubmoos ah iyo mid xaqiiqo ah talow teenu waa midee calaamatu su'aal interland dhahay bisani kama jawaabin dadkii 100 qof wax ku dhow oo ka soo jawaabay waxay intooda badan isku waafaqeen qubmoos inay ahayd xurriyaddu oo ina xaqiiqo ahayn maxay dadku aqli beelay ma garanay moogtahay wax xaqiiqo waxna xaqiiqo waa la kala garanaya 18, mid kale waxa la yiraahdaa digaagadda markii la gowraco la qalaayo si yaani looga rifo dhogortan kore ama buulka waxa lagu shubaa biyo kulul biyaha markii lagu shubo inta laga rifaayo way dhimatay digaagaddu laakiin markii la jiidaayo codaa ka soo baxaya qiiq ay dhahay marka qofka marka uur nuulka ay sheeganay cabsanayo xogaasaas qiiq markay dhahdo inay noo soo maleynaa ma rifi kara marka asna maamaha loo sameeyay waxa la yiri doorada iyo kii guraasay rifowka la jeed waligeed baqiiqa ku haysaaday hawshaada la iska wado rifle adi ayadoo dhogortii aad ka dhamayso maad arkay aad ka dhamayso markii dadku ay soo jeestaan oo dhahan waraa qayla naga daayo danteen anaga naqaan idinku nooma yeerinaysaan sidee yeelan turkidu waxay dhahaan anaga dib meesha naga soo gaaray walaalahan Suuriya dibaa soo gaaray qaxootay turku yihiin waa culays weyn meeshoodan ku celinayna dhulkooda ay dagaayaan haddana carabta oo sunniyiinta iyo turkiga in la kala gooyaan rabaa turkina waxa mabda ka ah carabta inay isku xirmaan oo maadaama sunniyiin isla yihiin waxa maanta la baabi'inayo ee la gumeysanayo ee la rafaadinayo ay sunniyiin yihiin 19, laakiin qofku leh anu arkaan iimaanka waan rumaysanahay kitaabkii quraanka waan rumaysanahay haddana la soo taagan maxaa masaajidka looga hadlayaa kitaabka hal isku xukumo oo maxaa looga hadlaa koox wuxuu dhahay masaajidka ma uga hadashaan aakhira ma uga hadashaan markaas aakhira maxaan uga hadlaynaa adduunyan joognaabe waaba noolnahay aakhirada waa loo socdaa waana loo jeedaaye quraankana markuu adduun iyo aakhira ka hadlaaya adduunka soo horeeya rabbana aatina maxali rabbana aatina fi dunya hasanatan solamadin maxaa looga boodi way fi dunya oo loo leeyahay rabbana wa fil aakhirati hasanatan loo dhiway lama dhin rabbana aatina fi dunya hasanatan wa fil aakhirati hasanatan way isleeyihiin way soo socdaan 20, innaga is weydiina marka inta meena soo gaartay meena soo gaarin Soomaaliya naay meena soo gaartay warnimo aan runta iska sheegno dad shaki ka qaba miyaa jira inay soo gaartay in kale
yaan maqlin ayuha الnaasu ina dimaa'akum وamwaalakum وacraadakum calaykum xaraamun yaan maqlin waa la maqlay soomaali marka maxaa inugu dhacay marka hal hadal haddii la isla dhaafo maxaa ku xiga oo maa la dilo oo maa la dilo maxay tahay ma wax la fahamsiiyo ma la wada hadlo dilkan saa u fudud iyo nabiga sal allahu alay slam uu leeyahy inaana mar dambe idinla kulmin ayaa laga yaabaaye iga dhegaysta warka aan idiin caddeeye eh iyo fudaydkan xaggey ka isla gelaayaan oo maxabada nabiga sal alla alay slam saa nabiga u jecelnahay aada ogtihiinoo qof walba nabiga uu jecel yahay qowlkiisiina uu kan yahay haddana qowlkiisa aan dheg jiliq loo siinaynine qof walba dantiisa su asaga raboon iska yeelyeelaayo sidaas si wanaagsan ma aha nabiguna wuu ina soo gaarsiiyey ilaahay buuna markhaati geliyey wuxuu yidhi allahuma fashhad ilaah markhaati ka aho